This morning, police rescuing 15 Ethiopian nationals. haddaan kadabkeyna wararka ugu dambeeyey waxaa habeenimada khamiista loo dhacay guri ku yaala magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. booliiska ayaa ka warhelay in halkaasi lagu haystay dad maxbuus ahaana oo South Africa soo galay Ethiopian ahaa, isla markaasna dadka ganacsada dadka muqallasiin yahay. markii xogtaasi la helay waa la aaday, waa loo dhacay meeshaasi kala orod ayaa ka dhacay. warbaahintu waxay tibinaysay in dad qaaqaawan oo Ethiopian ay xaafadaha ku kala baxsadeen oo dadkii la haystay halka qaar la qabtay. ugu yaraan 3 ilaa 4 dadku ay afduubnaayeen ayaguna la qabtay sida la sheegayo, isla markaana maxkamadda soo taagi doona. dadka ayaa laga codsaday in xaafadaha iyo haddii ku arkaan dad luqadna aan fahmaynin, iskana qaawan, iskana cusub ahaayeen inay booliiska la soo xiriiraan soo qabtaan. dadka ayaa laga codsanaya markaasi. sidoo kale dadkii inta badan dadkan u afduubnaayeen iyo gurigii ayaa la helay, baaritaan weyn ayaa ku socdo, walow qaybo kale lasoo badbaadiyey markii dambe. doortaan daawana bal wixii dhacay bal habeennimadii khamiista. Revealed that there are those that may have escaped successfully, and it is alleged that they are naked. So the people and the communities, those that are in and around this area, should look out for individuals that are that are naked rather, and origin would be Ethiopian, and they might struggle to speak the English language, and that is the issue that we are facing. And of course the 26 combined, those that are arrested here and as well those ones that are at hospital, will be interviewed tomorrow. Interpreters will be organized, and other role players that are actively involved in the TIP Act or in the human trafficking, they will also be roped in to assist in further investigating the matter. Additional to the 26, 3 suspects were arrested and charged for human trafficking. kiisa human trafficking ama in dadka laga ganacsanayay ayaa la furay. guryaha dadka iska lahaan waa la badikoobaya. suuragalnimada waxaa la sheegaya in guryaha Ethiopian iska lahayeen, balse warbixintii dambe oo subaxii soo dhacday ayaa sheegaysa in booliiska Koonfur Afrika 15 ka mid ah dadkaasi ay soo badbaadeen, isla markaasi kuwii kana lagu daba jiro lana soo qaban doono. booliiskuna waxay dadka si naxariis leh uga codsadeen in dadkaasi booliiska loo soo gacan geliyay, isla markaana wax kale lagu sameynin. inta badan dadkan ayaa dad iska joogay oo kastumnigisi yaryar ama kastumooyin yaryar, buumooyin yaryar iska watay, banaanka guriga iskaga raaxaysanaya, aanan laga fikirinba in lasoo baari doono guriga, oo nimankii xitaa macnaha haystay aysanba qarinba oo banaanka iska joogaba. dadkii iyo deegaankii xaafadda dadkan tirada badan oo maalinba soo qulqulaa meesha arkay, booliiska le hoos laga wacay. sidaas ayna ku dhacday arrintaas la sadaalinaya ama la qiyaasi karo. nimankan waa ka fakadeen oo Ethiopianka niman South Africa joogay ahayn, laakiin kuwii kale ayaa la wada qabtay. This morning, police rescuing 15 Ethiopian nationals who were kept against their will in a house in Lombardy, Eastern Johannesburg. 11 have been hospitalized while dozens escaped, most naked. Last night, police are now investigating a case of human trafficking. Our reporter Heidi Jokers was there joining us now for more on this developing story. Heidi, a very good morning. It's been a long night. Tell us what happened. Yes, so we understand that around 9 o'clock last night, Bradan, in Lombardy East here in Johannesburg, the community here heard a bit of chaos coming from this particular house behind me, and it appeared to the community as though it was a break-in. They then alerted security companies as well as the CPF and of course police to this particular house, when they then soon waxnimada jimcada ee lasoo badbaadiyay qaarkood. Ethiopianka inta badan waxay sameeyaan shabakado waxay leeyihiin dalkooda ilaa ay South Africa dadka keeno, kuwaas markii dalka la keenana lacag kale oo dheeraad ah ka safrto. ma aha markii ugu horeysay oo sidaan booliiska u soo badbaadiyaan dad Ethiopian kale ay haysteen, balse dhowr mar hore ayaa la sheegayaa. weliba isla agagaarkaas deegaanka xalay loo booday ayaa sidoo kale ahayd markii 3 bilood ka hor lagu qabtay ayagana dad 100 Ethiopian gaaray oo niman Ethiopian u xirnaa. dowladda South Africa ayaa arki doona wixii warka soo sameysay, balse dhacdooyinkan Ethiopianka isku sameeyeen inta badan waa soo noqotay. dadka ayayna ka soo qaadeen dalkooda, waxay keenaan Koonfur Afrika, kadib ay lacag kale oo dheeraad ah oo madax furasho familka ka sii rabaan. waa mahadsantihiin saaxiib.